Puntland ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay sida ay ka yeeli doonto maxaabiistii ajaanibta ahayd ee laga qabtay maleeshiyada Daesh inta uu socday dagaalkii ka dhacay buuraleyda Caalmiskaad ee gobolka Bari. wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamed Caydi Dirir oo wareysi gaar ah siiyay laanta Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistaasi loola dhaqmi doono siyaabaha ay ku dagaalamayeen iyo sidoo kale waxa ay kala aaminsan yihiin. waxa uu sidoo kale sheegay in maxaabiistaasi laga yeeli doono sidii laga yeeli jiray dambiilayaasha argagixisada ay Puntland ku soo qabato dagaalka ka socda buuraleyda Caalmiskaad. waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxa laga yeelayaa wax dambiilayaasha laga yeeli jiray waxa weeyaan dambiilaha wixii laga yeeli jiray baa laga yeelayaa caalamka argagixisada siyaabo kala duwan bay maartay ula dhaqmayeen maartay qaar mid walba iyadoo loo eegayo capacity-giisa keebaa askari kaliya ahaa keebaa la soo khalday oo qof la soo khalday oo ka shalaayo maartay in maartay lagu soo khalday inuu halka yimaado ama aqoon ahaan ama muxuu ahaa si kale loo soo khalday keebaa mabaadi'an aaminsanaa oo madax ahaa oo maamulayay oo maartay nidaamkan maamulayay oo qayb ka ahaa oo mabda ka ahayd siyaabaha ay maartay capacity-ga ay ku dagaalamayeen baa loola dhaqmi doonaa insha Allah. hadalka wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka Puntland soo bandhigay maxaabiis ajaanib ah oo kooxda Daesh looga qabtay howlgal ciidamada maamulka Puntland ay ka sameeyeen buuraleyda Caalmiskaad ee gobolka Bari. waxaana ajaanibta la qabtay ay ka soo kala jeedaan dalalka Turkiga, Saudi Arabia, Ethiopia, Morocco, Yemen, Syria iyo sidoo kale Tanzania.